السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دوادا waa video igu horeeyay ee aan ka soo muuqdo oo muuqaal iyo maqal ah. waa idin salaamaya, waa idin soo dhaweynayaa. waxaan idinku talagalay maanta inaan idinla qaybsado make up dib aan u dhigay, laakiin sunniyaha ayaan rabaa videohan inaan idinku tuso ama maaragtay aad iga faa'iidaysataan sida ugu fudud ee sunniyaha loo samayn karo. marka waxaa u baahan tahay sunniyaha markaad samaynaysid sunniyaha oo nadiif ah, iyo waxaa u baahan tahay eye pencil ama eyebrow pencil kan indhaha maaragtay la mariyo qalinka indhaha la mariyo sunniyaha oo laba nooca u baahan tahay, brown iyo black. hadba saa u jeceshahay. dadaa jecel inay indhahooda ay sunniyahooda black u noqdo, iyo dad oo brown saa jeceshahay. iyo waxaa u baahan tahay kan oo eyebrow lagu sharp gareeyo ama lagu sharpener. iyo waxaa u baahan tahay concealer iyo brush ayaa u baahan tahay. brushka indhaha lagu brusho iyo brushka concealerka lagu marsado iyo concealer of course. intaasaa u baahan tahay. marka hore waxaad sameynaysaa indhaha brush garey ama sunniyaha brush garey. brushka mari si fiican u brush because waxaa la rabaa timaha inay maaragtay si fiican u shallaysid. hadhow qalinka si fiican ayaa u marsan kartaa haddaad maaragtay aad brush gareyso. brushka aada u muhiim u yahay oo sunniyaha in la brusho intaadan waxba marinin. so labada qalin ayaa haysataa, mid brown ah iyo mid black ah. badanaa aniga waxaan jeclahay sunniyaha brownka ah ama blacka iyo brownka la isku qasay ayaan jeclahay. c'est more natural. laakiin hadba saa jeceshahay. madowna waa ka dhigan kartaa, dadaa jecel sunniyaha madowga ah. marka waa ujeedaa. marka hore waxaad samaysanaysaa shape. waa inaad shape gareysaa. shapeka muhiim waaye. marka hore qalinka la raac, si fiican u shape garey. qaybta hoose shape maaragtay qalinka shape ahaan waxaad la raacaysaa timaha, meesha ay timaha ay kasoo baxayaan iyo meesha ay ku dhamaanayaan. qaybta korena halfway ayaa ka bilaabaysaa. halfway sababta halfway loogu bilaabo waxay tahay waa control kartaa. laakiin haddii aad qaybta hore iyo qaybta sareba aad ka bilowdo meesha timaha ay kasoo baxayaan, si fiican uma controli kartid. waayo qaybta dambe sunniyaha qaybta dambe waa easy in la control, laakiin qaybta hore si fiican haddaad si fiican u controlina waxay u ekaanayaan waa la fahmayaa maaragtay inay timo lahayn oo kale. meesha qaybtaasi badanaa timaha way ku yaryihiin. so si aad maaragtay u controlsho oo si tartiib ah aad maaragtay timaha aad u dulmariso qalinka, waxaad ka bilaabaysaa halfway. marka saas darteed ayaan qaybta kore mar walba halfway uga bilaabaa markaan qalinka marinayo. inta kale waa buuxinaysaa. inta kale waa easy. marka hore markaad shapeka samayso, inta kale easy ku noqonaysaa. soo saa ujeedid waa kasaa. intaa waa buuxinayaa saa idin sheegay. haddaad rabto black, haddaad rabto brown, labada haddii kale waa isku qasaysaa. aniga labada waa isku qasaa. brownka iyo blackka waa isku qasaa. waa ujeedaa. qaybta hoose saasaad u marinaysaa. timahaad la raacaysaa meeshay kasoo baxayaan ilaa iyo meeshay ku dhamaanayaan ayaad la raacaysaa tartiib. waxba maaragtay dayn. laakiin qaybta kore waa kasaa. halfway ayaa ka bilaabaysaa. halfway si aad u controlsho qaybta hore, halfway ayaa ka bilaabaysaa. so marka aad shapeka aad samayso, inta kale waa very easy. way ku fududaanaysaa. fudeyd ayay ku noqonaysaa. waayo waa buuxinaysaa bis. waa kaasaa. saasa u buuxinaysaa tartiib. waxbaa degdegin. tartiibtaada waqtigaa qaado. kasa qaybta hore saasa u controleysaa. sidii waxaa ka dhigaysaa sidii timaha oo kale, inay timo leeyihiin oo kale. saas ayaad u marmarinaysaa. so waxay u ekaanaya hadhow natural inaad meesha timo ku leedahay oo kale. aniga timo ma leehi. timahayga aada u yaryihiin. sunniyahayga timo badan ma laha. waan lahaan jiray laakiin hadda khafiif bay noqdeen. marka timo saasa ma lehi. so laakiin marka saa loo shape gareeyo
oo saan idin sheegay labada brown iyo black la isku dhex qaso waxa la moodaa qofka inuu timo leeyahay oo kale. waa ujeedaa hataa uma baahnid concealer, hataa uma baahnid haddii aad shape-ka si fiican u samayso concealer uma baahnid. concealerka macnihiisa waxa waaye inuu shape-ka si fiican usoo saaro, shape-ka ayuu si fiican usoo saarayaa. marka waa kasaa ujeedaa dan sidaa waa ku bixi kartaa sidan, waxba concealer hataa uma baahnid. shanladaas bes daasid brush si fiican u brush garee. brushka muhiim waayo wuxuu isdhexgelinayaa qalinkii aad marisay iyo timaha ayuu isdhexgelinayaa, marka wuxuu ka dhigayaa natural, more natural looking ayuu noqonayaa. especially qaybta hore saas ugu brush. waa kaas hataa concealer uma baahnid. waa ujeedaa beautiful shape. waa kasaa shape qurux badan ayuu noqday. hadaa istiraado meelaha banbanaan saas u buuxbuuxi. that's it. saas waa ku bixi kartaa already done. beautiful maasha allah. concealerkana haddaad rabto waxaad sameyn kartaa laba nooc. suniyaha qaybta hoose waxaa marin kartaa concealer light ah. aniga badanaa suniyaha qaybta hoose waxaa mariyaa light, waayo eyeshadowga hadhow si fiican ayuu maaragtay uga soo baxayaa markaad light concealer aa mariso oo adiga kalarkaaga lightka ah. waa qaybta hoose. laakiin qaybta sare ee suniyaha waxaa ku wanaagsan in la mariyo color ama concealer u eg kalarkaaga, mid adig kaa lightsan qaybta kore kuma fiicna. laakiin qaybta hoose ee suniyaha lightera fiican, mid concealer lighter ah ayaa soo bixinaya, waayo eyeshadow aad marsanaysaa, eyeshadowguna aada usoo bixinaya hadhow. kasaa waa ujeedaa waa concealer aada light u ah. haddii aadan haysanin concealer oo maxaa la dhahay sometimes way dhacdaa haddii aad haysato hal concealer oo ah light one, mid oo xoogaa skinkaaga u eg waa samaysan kartaa. waxaana u samayn kartaa waxaad isku qasaysaa xoogaa maaragtay foundationkaaga, waayo foundationka badanaa kan skinka u eg ayaan soo gadanaa. so wax yar oo foundation ah iyo wax yar oo concealer isku daraysaa, waa isku qasaysaa, marka wuxuu ku noqonayaa concealer xoogaa dark ah oo skinkaaga oo kale ah. anigaba saasaan samayn doonaa, waa arki doontaa. si qaybta hoose waan dhameeyey. that's it. waa isdhexgelinayaa. that's it. saas isku dhexgelinaysaa. brushkana waa inuu ahaadaa brushka noocaas ah. brushka waa kala nooc. brush oo concealerka loogu talagalay oo noocaas ah ayaa ku fiican inaad indhaha hoostooda marsato. brushka aan hadda haysto laba dhinac ayuu leeyahay, dhinacna concealerka, dhinacna blending isku maaragtay isu dhexgelinta ayaa isku dhexgelinaysaa. hadda waxaan diyaarsanayaa concealerkii oo skinkayga u ekaa, waxaana isku darayaa concealerka oo lightka ah iyo foundation oo skinkayga u eg ayaan isku dhex qasayaa. waa kasoo isku soo dhex qasay. inta kore ayaa marinaya, marka light ma aha, waa ujeedaan skinkayga ayuu u egyahay, laakiin shape qurux badan ayuu sameynayaa. waa ujeedaa shape fiican ayuu sameynayaa oo qurux badan, waayo qaybta sare ee suniyaha ma wanaagsana in concealer cad la mariyo oo cadaankii uu banaanka oo la arkaayo ma fiicno. laakiin qaybta hoose waa marin kartaa, waayo hadhow eyeshadow waa marinaysaa, ku blend garaynaysaa, si qurux badan ayuu kusoo baxayaa. laakiin haddaad rabto labadaba dark waa marin kartaa saa adiga rabtid.
concealer dark ah ama concealer oo skinkaaga u eg qaybta sare iyo qaybta hore waa ku isticmaali kartaa saa rabtid. So it's done. Marka intaa waxaa soo haray ayaad brush gareynaysaa, waa ku blend gareynaysaa. That's it. Hadda waa kasoo ujeedaa qaybta kore in wax la mariyay xitaa lama moodo, laakiin shape-kii wuu kuu soo saaray, shape qurux badan uu kuu soo saaray, laakiin in wax la mariyay xitaa lama moodo. Marka qaybta hoose saas u blend garee. haddaa rabto inta yareed ee isku qastay ee kuu soo haray ayaad marinaysaa si aad maaragtay qaybta hore ee suniyaha inta hore sanka korkiisa ah waxaad marinaysaa xoogaa foundationka u eg skinkaaga. waa cadaanka badan areadaas, cadaanka badan xoogaa ka yarey, laakiin qaybta dambe ee suniyaha xoogaa inay maaragtay xataa waxaa la mariyaa lighter, waxaa la mariyaa highlighter la mariyaa. So waa u fiican tahay inaad saa ku daysid, si fiican isku blend garee. waxaa haray bis inaad isdhexgeliso iyo brushkana waa idin sheegay waa muhiim mar walba brush si fiican u brush. suniya haddaad maqasho, haddaad samaysanayso brush la-aan ha samaysanin. brushka waa muhiim, waa inaad brush garaysaa, ama timo lahow ama halahaanin, waa qasab inaad brush garayso. So masha Allah, that's it. All is left is blend. That's it. waa blend garaysay, waa brush garaysay. waxaa haray qaybtaas hoose inaa xoogaa cadaanta badan aa ka yaraysid bes. That's it. hadhowna foundationkaagaa marsanaysaa. qaybta kolley hadda video waa igu dheeraaday, marka video kan ku xigaan aan kasoo dhigi doonaa make upta foundationka iyo eyeshadowga iyo saa u marsanayo ayaa idinla qaybsanayaa. video kan ku xiga insha Allah ayaad ka daawan doontaan kan, laakiin hadda waan soo gabagabeynayaa. waa kasaa, wow, that's it. waa kaas suniyaha saasaa u samaystaa. maasha Allah, finished. waa dhamaatay, waa dhamaysay. that's it. marka waxaad samaysanaysaa foundationkii. so waxaan ka dhigayaa next video insha Allah, waad arki doontaan video kan ku xiga. daawada insha Allah.